habaryartay wallaahi way ka samirtaa quraha gabadheeda ayadoo 3 sano jir ah inta la xaday oo waliba yaa xaday nin keeni jiray guriga dhuxul iyo qoryo nin keeni jiray dhuxusha iyo qoryaha markii hore hadda gaaskan iyo in adduunka casri uu noqdo Soomaaliya laakiin 17 sano kor qof walba yaqaan nin waxa jira qaar qoryo keenan qaarna waxay keenan dhuxusha keeni jireen xaafadaha marka dadka dhuxusha iyo qoryaha iyo qashinka iyo ka qaado xaafadaada waxay noqonayaan bartinet bay noqonayaan xaafadaada iyo ilmahaaga iyo familygaaga kamid noqonayaan dadka ay kala baranayaan Soomaaliya marka waxa fiican fiiro gaar ah u yeelatay dadka noocaas oo ku keena adiga waxyaabaha adeega noocyadaas ku keenay gurigaaga keenay inaan waxa fiican fiiro gaar u yeelatay isku ogaateen ilmahaaga ayna baranin oo gabadha ku joogtay qof ku adeega inta alaabta ugu dhibto ordu geey banaanka ugu geey aad dhihin sababta wuxuu baranaya familygaaga meesha ku jirtay ilmihiina saaxiib buu ka dhiganaya markaas waxa sahlaanayso inuu cunug intuu wato oo wuxuu doona ka sameesto bal ka waran cunug asoo 7 sano jir 3 jir la xaday oo la helay asagoo 20 jir ah oo haddana ilmo haysto بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واني سلامي دمان walaalaha ku xiran channelkayga meel kasta adduunka ay ka joogtiin waxaan idin rajeynayaa khayr caafimaad farxad bash iyo barwaaqo inaa ku noolaatiin insha Allah waa mar kale iyo muuqaal cusub insha Allah waxaan rajeynayaa inaad soo dhawaatiin muuqaalkan aad ka heli doontiin aan cashir ku qaadan doontiin hadduu Ilaahay yiraahdo inta xanuunsan Allah caafimaad siiyo inta caafimaad qabtana Ilaahay u siiyo insha Allah sheekada maanta idin sheegi rabo wallahi وبالله طلع waxaan ku dhahay waa sheeko rasmi ah oo soo taagnaan oo lideen waa lagu sheegay iyo waa la soo sheegay iyo waa la yiri aysan ahayn sheekada waa sheeko really oo aan soo taagnaan soo aan ogaay anoo yar oo ilmo aan dhacday ilaa hadda wali taagan sheekada waxay ku saabsan tahay waxaa jirtay habayartay waxa gabar laga xaday 17 sano ka hor baa gabar laga xaday iyadoo 3 sano jir ah markii hore waa dadku waa la wada ogaalaysiga waa la sii qaanay gaaskan iyo waxaan Soomaaliya hadda casri noqotay hadda dadku inay gaas shitaan iyo waxas ay bilaabeen Soomaaliya way hore waxa la gadan jiray oo waliba hadda waa la gataa laakiin hadda ma badna waa yartaa ma dhuxul iyo waxa la gadan jiray qoryo oo dameero lagu keeno niman ay ka keenaan baadiye ay ka keenaan waxa dhacday habaryartay waxa u joogay 3 gabdhood iyo 4 wiil haysataa hadda waxa u joogo 3 gabdhood oo wada joogan laakiin gabar baa ka maqnayd muddo 17 sano ah saddexdeedii gabdhood gabar kamid ah waxa u joogo jirtay banaanka oo ilmaha ugu yaray markaas banaanka isaga ciyaari jirtay meel iska taagnaan jirtay ilmo yar waa baashaale ma waxa dhacday maalmaha kamid ah ninkii gadayay dhuxusha ninka u keenay joo rukunka ahaa dadka waxa jiro qaar laga shakiyo markay ay wax sameynayaan ama qaar laga shakinay jirto ma ogtaa ninkii rukunka ahaa dhuxusha guriga keeni jiray iyo qoryaha wuxuu sameeyay gabadhii wuxuu soo gaday nacnac iyo waxyaabo yar oo ilmaha yararka lagu saban karo oo keenay maalmihii ugu horeysay inta ugu horeysay hadii qofka guriga keenay wax walba imaado xaafadda ilmaha way iskala ciyaaraan way iskala kaftamaan way iskala dhaleelaan maxay kala ogi cunug 3 jiran waa iska garanaysiin cunugtu sidoo wuxuu u kan keenay jiray maalinka dambe cunugta dafuu siiyay wuu xaday hadee ma la tahmin mana la fahmin ninkii si hawshiisu isku sii watay dhuxushii qoryo cid u keenay meesha dhan rukun buu ka ahaa magaalada dhan waa u shidneed adduunkiisu iska dhaqanay gabadhii waa la raadiyay meel aan laga raadinin iyo meel aan loo marin gabadhaas in la helo wallahi ma lahana ku dhahay si u raadinayneen raabta habaryartay iyo hooyaday iyo dadka ehelkaniga dhan si loo raadinay cunug soo laga soo waa laga samray cunugtu waa laga samray waa laga dadka dhintaa lagu tiriyay habaryartayna liiska way ka saartay Soomaaliya ilmo inay dhashay waa gabar بس waxaa dhacday isla waagaas waa u dhowna marka waxa luntay oo ayna la xaday sidaas oo kaleeto gabar kaleeto oo cid dariska ah ay dhaleen ninkii dhuxulaha ahaa wuxuu sameeyay cid labadii gabdhood asaa ileen xaday labadii gabdhood wuu kaxeeyay wuxuu geeyay tuulo ka fog tuuloydii oo ay deganayeen magaalada la deganaa tuulo ka fog oo asaga mid asaga degan yahay oo ka keenay dhuxushii qoryaha iyo ka soo quraan ahayn wuxuu geeyay labadii gabdhood wuxuu u geeynin oo aan waxba dhalin oo kaligiis si hooyadiis isla nool yihiin oo meesha ku haysta beero iyo xoolo meesha ku haysta u geey oo gabdhii u ka gatay bas gabdhii markii uu ka gatay oo uu siiyay lacagtiisu ka soo qaatay ninkana gabdhii soo qaatay ninka waxa la dhahay marka waa nin weyn waxna muusan dhalin marka ninkaas gabadhii labadii gabdhood midna ariga u raacisay
midna guriga oo shaqeynaysa dadka qaarkood maqta maqfirada ila yihiin dadkan baadiyaha dhan ma dhihi kara baadiyaha dadka jooga oo dadka jaahiliga oo waxba aan kala fahansanin diinta aan haysanin diinta aan aqoonin fahansanin macnaheeda waxay sameynayaan waxay rabaan bay ka sameystaan ilmaha iyo dadka oo caadiga oo markaas ay arkaan sooma wiilka hooyadiis marka dadka waxay u sheegtay tuulada warkii way cadeysay waxay tiri wiilkayga aniga waxba ma dhalo gabdhahan labada oo heystana asaga ma dhalin saas darteed gabdhahan muu iska heystaa ay tiraahday ee qofkii islaamku ka naxay gabdhahan lagu raadiyay sababta wiilkayga intaas oo naago soo guursay waa nin weyn 20 jir intaas naago soo guursay weligiisna waxba ma dhalin hadda labadan gabdhood hadda ka hor bogatay hala laga soo gaaro qofka islaamka oo gabdhahan baafin karo meesha isaga heystaa si sharci darre mid marba iska fuulaa bas dad waa taqaan war hadii qof duqday mar qof u sheegtay warkuu sii faafay gabdhihii warkii way maqleen ninkii uu ogaaday in duqda hooyadiisa ay fashilisay labadii gabdhood mid hawrirtay dhashay marka warkay maqashay inaan cidaan aan dhalin ninkan uu dhalin cidaan aan laga dhalin waxa lagu soo binay ogaatay qof weyn aqli la waay gabdhihii marka way iska carabtay gabadhan way ka tagtay markay ka carabtay gabadha hawrirtay markay ka carabtay ninkii nin bay guursatay meel kale tuulo kale tagtay way tagtay markaan aqli ay yeelatay ninay guursatay ninkii is guursadeen sheekadu way sii socotay gabadhi kalena ninka meesha isaga heystaa laakiin gabadhan waxna ma dhalin ninka asoo wax ma dhalayo maxaa dhihi jiray waxa dhacday ninna meesha guursanin way cabsatay baqdin qof dadku isku dhiirinaan ma ahan way ka baqday xistir uma ku dilaa ama uu soo raadsada tii hore wili raadin yahay bas sheekada si loo wada loo dhahay gabdhahan wixii dhalay waa lagu raadina waxa dhacday in la soo ogaaday gabadhanadii in la soo ogaaday meel ay joogto meesha lagu qabo wixii dhan la soo raadiyay waa la soo helay ay kulli xaal gabadhii hadda waa la soo helay markii la soo helay maxaa dhacay gabadhan waxay lahayd uurey lahayd markaas ayadoo xaamilo oo dhalmo caawiya brimiya loo tagay intii dacwadii iyo warkii socotay gabadhan xagee ka keenteen gabar bay dhashay gabadhii hadda gabadheedii haysato cidii waxay dhaheen ma la wadaay anaga gabadhan si sharci ah ku guursanay dumarkii si loo fiirin si sharci ah ku guursanay kitaabka ilaahay ku guursanay waa xalaashanada hadda idinka dhasheen gabadhiina waa wadan kartiin laakiin cunugtayna dhashay ma naga wadanaysiin waay dacwadii socota ninkii waa la xiray oo maxaa dhihi jiray gabdhaha haysan jiro laga gatay waxaa lagu xujeynayaa inuu keeno ninkii uu helaa ninkii kaleeto oo waagi gadi jiray dhuxush iyo qoryaha oo tuulada dad magaalada u keeni jiro tuuladaas kaleeto gabdhaha ka soo gaday hadda waxaa la hayaa gabadhi markii laga soo waday cunugeedii oo la diiday cidaan ay dhaheen gabadhanada noo daarna gabadhanada sii kuwaan ay diideen gabadhooda ay dhaheen gabadhanada dhashay mana laga wadaayo gabadhan anaga dhalnay wiilkeeda dhalo duqdi hooyadiisa ay u diido tir wiilkay gabadhiisa in ma siinayo aniga gabadhan si xalaalan ku qabnay gabadhi waa laga soo wada markii soo wada dhaxla sii marsiinayo tuuladii kaleetana ayna gaarin oo ninkii hore oo gatay uu joogay tii ninkan laga soo waday gabadhi hooyo waa taqaanin umul oo caana haysto caana ku jiro Soomaaliya gabadhi qandho anaas xanuun dhibaato dhan ee gabadhi mutaysato wallahi weyn oo socon taxta la ka soo baxay tiri ilaa aniga cunugteeda ii gali hooyo beer wax dhalmo ilaa cunugteeda ii soo celi wallahi ana yeelanay tira ama wax isxaday aniga ama wax isdeenay shaqadeeda ma sababto aniga oo 3 sano jiro la ogeyn meel aan igu ogeyn ina sheegtay hadii hadda la isoo helo hadda inaan gabadhay sidaas oo kale ay noqoto walaba gabar aqli badan waa say yeeli lahay ilaahay nagu ma keen dhibaatadaas waxay tiri ma ka tagayay hal ii celiyo bas hadda gabadhii waxaa lagu celiyay gabadheedii waxaan la sugayaa cadaalada ah in la helo ninkii gabdhaha gatay labada ah mid kaleetana cid kala dhashana iyo ninka weyn oo oday oo 70 jirko asoo waxba dhalinay inta gabdhahan si dacadi xadgudub oo kula dhaqaaqay oo asoo waxba aan ka fikirin oo adduunyo kale aan ka fikirin oo aakhira aan ka fikirin gabdhahan ay dhibaateeyay masaakiinta oo ilmaha yar yarka oo gurigiisa joogay oo asoo uu gato lacagtiisa oo ka baxsaday waxaan maqlay jiray adoonsadaa wasaban dadka adoonsiga jirtay gatay asna uu xiran yahay inuu laga cadaalad u maraan sababtoo gabdhahaas xadgudubka uu geystay waxaa kaloo xiran ninkii kaleeto oo ka dambeeyay in la gado gabdhahan soo sahmiyay ninka dhuxusha gado nin baa la sahmiyay oo jooga magaalada ilaa haddana joogo marka ninka kale hadda waxaa baadi goob loogu jiraa gabdhaha gatay fahmaysin marka wallaahi billahi sheekooyinka qaarkood gabadhaas hadda intii insha Allah waa in soo gudbin doonaa qaybta labaad markii la helo gabadha dhashay ilmaha gabadha ilma cunugeedii iyo iyada waxay ku dambeeyaan iyo cidi gabadha loo dhalay waxay dhihi doonaan iyo sida xaalkooda uu ku dambeyn doono hadii Ilaahay yiraahdo sheekadan inta cashir waxaan ka qaadan karnaa inay wallaahi ay si jirna ku dhaw maxaa dhihi jiray meel walba wax walba qof walba aad soo dhaweystaa wax ku qaban inuu ku xadi karo ama ilmaha xataa u dhibaato u gaarsiisan karo real aniga xataa wallaahi waa cabsado waxaan isdhay ama ilmaha dugsi iskool gabadh adartu gabadh dugsi iswala iska geyn oo ha meelna geysan yaa laga xada daf dhaxya laga bixin inta sheeka aan soo arkay oo soo maqlay
إني قبل الله حذا قبل أسواق اللي حذا والله أقل أساس ما لهن قبل أسواق اللي حذا واق اللي حذا ويا رامك قبل أس الحذا إن حضر الهلاي أيضا ناقوين ولا باتنجرو المهي سطاع marka intaas un soo silac iyo wuxuu ku soo jirtay Soomaha iyo dhibaato iyo dadkii dhibaatay markii cadaalad helayaan waa xaqiiqo oo ma jirto qof oo sharciga cadaalad ka sareeyo ta kale hooyooyinka iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxa leeyahay iska ilaaliya dadka wax ka gadanaysiin dadka kula joogo bahal warta uu noqon karaa waa narta nimanka waa qaaqo waa bahal qof kula joogo oo wax ogsirtaada oo kuwa biyaha shugo dad hadda biyo ma la soo tuubeyna ku jirto waagu hore laakiin waxa jirtay dhuxush niman baa laga gadan jiray biyaha niman baa laga gadan jiray xataa waxa dhici jirtay biyo macaan magaalada ceelasha qaar baa dhanaana ma biyaha ku jiro biyaha macaanka ah niman baa keenayo nin wuxuu keenaa dhuxul mid wuxuu keenaa qoryo markii muraadada la qabo qalaasi wax lagu qabsado koob waxay qaadaan qashinka marka niman dadkaas oo kala dhan partner oo family-gaaga ay noqdeen ma oo gurigaaga yaqaanaan iyo sirihiisa iyo meesha ka jilicsan tahay iyo qofka dagan oo la qaadi kara iyo wax walba inay ogyihiin dadkaas marka too kale in iska jira fiican taxadar loo yeesho hada guriga kale markii lagu soo garaac lagu dhaho waxaan rabaa qashinka ka qaado ninka qashinka qaada dad gabadha ku joogto oo guriga kaaga adeegaysa ama qof kale oo yar dhahay qashinka u bixi u geeyahay cunugaaga uu daba ordo mar walba uu daba ordo cunugaaga laga yaabo inuu banaanka dhinac ku siiyo laga yaabo inuu banaanka xalwiye taata iyo wax ku siiyo uu soo sameeyaa Soomaaliya cunugga cunugga qofka markuu kalsooni u geliyo hor gacanta u sii qabsan karaa masaalan taxta ma ooynayo oo ma dhaqay ilmaha qaarna waxa jira ay waxba la siinin aan qala aqoonno iska raaca qofka ee arkaan wallahi aan hada mar dhow oo saas u sii fogeyn degmada hadda aan deganahay xaafadda kamid ah xaafadda aan deganahay waliba qaybta aan deganaa cunug baa mar dhow waxtaas laga xaday laga xado la waayay cunuggaas muxuu raacay ma taqaanin niman oo geel xaafadda ciyaalka geela ma arkaan waxay u noqotaa wax kale oo surprise ku noqonay geel arag ilmaha magaalooyinka ku dhashay markay arkaan wax kale oo balaayo ka dhacday la tahay way fiirsanayaan geel maalinkaas banaanka taagnaay suu u daba socday cunugii ciyaalada ku ciyaaray oo u lahay ilmihii la dhashana way ka mashquuleen oo ilmo la socday la ahayn cunugii hor leeyo loo sii wato afar jib buu ahaa ilaa hadda wiilkaas lama helin meel kasta laga baafiyo cadaha laga baafiyo wax walba marka ilmaha dadkaaneeto oo baartineedka kula oo ku iimaanayo oo gurigaaga guntimihiisa iyo yaqaan meelaha laga soo galgalo aadka kuugu badbadan ilmaha ka ilaashada intaas waa iga talo ina ilmaha ka ilaashatina ay kula talinayo wallahi bila cabsi weyn hadda maanta marka arko marna waa farxay marka maqlay gabadhin la helay marna waa naxay marka aan farxay waxaan ku farxay 17 sano gabar ka maqneed ehelkeedii hooyadeedii aabaheedii family-geedii anagoo dhan naga maqneed inay helay haddana waxaan ka naxay maxaa dhihi jiray even see noqon kartaa hooyo cunugeeda la xaday wax dhibkan wax qof kasta oo Soomaaliya ku dhici kara qof kasta adduunka jooga ku dhici kara laakiin markii cunug laga xado adiga qalbigaaga soo noqon kara ama dhowr 10 sano kadib uu kugu soo noqdo cunugii oo weyn oo caafimaadkiisa qabo wallahi bilaa waa farxad iyo maxaa dhihi jiray naxdin iska socoto ilaa marna waa ka samirtay marna soo noqoshiisa ku farxaysaa insha Allah waxaan noo rajaynayaa ilaahay noo xifdiyo anaga inta islaam aba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا قيبتي هذا لو عندنا إن شاء الله بكل هالنكاس لبكة جيستي وهذه سوق الدنيا